wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xalay war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda ka taagan magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka u ah maamul goboleedka Galmudug. dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka walacsan tahay xasaradaha amni iyo siyaasadeed ee maalmahan ka soo cusboonaaday xarunta ku meel gaarka u ah maamul goboleedka Galmudug ee degmada Cadaado. dowladda federaalku waxay cambaareynaysaa falalka aan waafaqsanayn sharciga iyo hannaanka dimuqraadiga ee lagu xayiray dhaqdhaqaaqyada madaxweyne ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug waxayna ku baaqaysaa in si degdeg ah xorriyadooda loogu soo celiyo si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga. dowladda federaalku waxay ku baaqaysaa in la ixtiraamo go'aankii uu baarlamaanka Galmudug gaaray maalnimadii shalay oo taariikhdu ahayd 26 Sebtembar 2017 loona baahan yahay sareynta sharciga. dowladda federaalku waxay faraysaa hay'adaha amniga inay ka hortagaan xasarad kasta oo keeni karta amni darro saameysana hay'adaha dastuuriga waxayna ugu baaqaysaa shacabka inay kaalintooda ka qaataan dhowrista nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka.